تو فيلم كبالا كريشنا هوغامي كيا بو باتيس رونو ee ku midoobeen saaxiibay shaqadiisa si waaliya ay u socotaa ayaa la leeyahay sida hadda warbixinada aan ku yeelino xoogaa yar feesaasan karantii markii la galay maanta ayaa wax yar la hakiyay maahane beritaba waxa la leeyahay waa la isku soo laabanaa filimkan blockbuster-ka 2025 isla sanadka gudihiisa 25 September ayaa la daawanaa filimka waa ay ka go'an tahay Bala Krishna sanadka in laba film tiyaatarada loo daawado saaxiibayaal aan qadana waa naqaanaa qaybtiisa koowaad si waaliya ayay ku furmatay tafaaful iyo waxaas baa iska ahaadaan laakiin si cimaamadiisa lama haysan kara saaxiibayaal sidoo kale ninkii barfaas ahay xataa dhag ayuu soo siiyay saaxiibayaal wuxuu yiri happy sinkaranti raajasab ayuu yiri saaxiibayaal sawirkan ayuu dhag soo siiyay waa sawir iska jawigiisa oo iska degan yahay barfaas qababa iyo haranti iyo action kama muuqato wiil iska jeceelow shactara iyo ka muuqato timihiisa iska jawi degan yihiin waa saaxiibayaal oo kiyaaliisa Raybon kana waa oo wata adiga atooro oo macnaa jugti injan galafta ku jiro uma eka people media waxay tiri happy sinkaranti ayay tiri saaxiibayaal filimkaana waxa la rabaa taariikhda siideentiisa in maanta la soo bandhigo feestada sinkaranti laakiin wax siideen lama soo bandhigan waxay u badan tahay marka filimkan in dib loo dhigayo 10 Abriil in dib looga dhigayo ay u badan tahay saaxiibayaal sida warbixinada aan ku helayno halkaas marka ugu tagno Barafas ninkii Akshay Kumar ahay asagana waxa waa meelaha feestada sinkaranti iyo feestada Bongal ayaa loo dabaaldegoyaa asagana feestada aabiteeda ayuu u dabaaldegoyaa asaga iyo Baresh Rawal ama oo Sabuka sa u taqaanin labada waxay shaqada filimku wadaan saaxiibayaal filimku lagu magacaabo Fuid Bangla oo Bariya Darshan hogaamiye ka yahay Wabika Qami iyo Akshay Kumar iyo Baresh Rawal iyo Tabu iyo ayaa isku jira shaqada filimka iyo setkaba ayagoo meesha joogo ayaa meesha waxa la jilooyaaba happy sakarati macnaha happy feestada sakarati waa taloogoga Bongalna waxa waaye ee dhakaas iyo tamiilka saaxiibayaal laakiinse nimankan ayagana feestadooda ma jabna baashaalkooda ayay wataan in aabiteedii iyo wixii anaga aan ka weynaanay ayaaba Akshay Kumar iyo oo Sabuka ay ciyaarayaan saaxiibayaal kulley waxa lagu soo warrabaa marka hadda waxa la leeyahay sadka filimka Fuid Bangla ayay joogan xoogaa yar oo nasiina ayay heleen halkaas ayayna baashaalkooda ku qaadanayaan ayaa la leeyahay saaxiibayaal